madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigii ballaarnaa ee uu hogaaminayay ayaa sidoo kale lagu soo dhaweeyay degmada Qorologood ee gobolka Buuhoodle waxaana soo dhaweynta madaxweynaha ka qayb qaatay wasiirka caafimaadka oo isagu baryahanba ku sugnaa magaalada Buuhoodle madaxweynaha ayaa socod ku maray wadooyinka degmada Qorologood isagoona salaan sharaf ka qaatay ciidanka qaranka ee ku sugan degmadaasi maayirka degmada Qorologood iyo odayaasha deegaankaasi ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay degmada Qorologood waxaana ay ka warameen baahiyaha ka jira deegaankaasi mudane madaxweyne waxaan ugu soo dhaweynaa degmada Qorologood aad ugu faraxsanahay waxqabadkaaga guud iyo waxqabadka gaar ahaaneed ee noo qarsoomay ee aad noo qabatay si xagal la'aan ah taasuwaanta deegaanada sida qarannimada leh ay u wareegayaan ummadooda oo madaxweynaha iyo raggiisa ugu shaqaynayo aad baan ugu faraxsanahay waana u mahadnaqaynaa waxaan maantana ka sugaynaa wixii hore wax la mid ah maanta loo qabato madaxda wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo arrimaha gudaha iyaguna goobtaasi ka hadlay ayaa dadkii soo dhaweynayay uga mahadnaqay sida ballaaran ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha reer Buuhoodle nabadgelyo diyaar u yihiin reer Qorologoodna waan ogahay diyaar baynu isu nahay isdhaxmarkii iyo kalsoonidii iyo wada dhalashadii iyo kalsoonidii aynu soo celino oo aynu nabadda ka shaqayno si horumar aynu u gaadhno si aynu dadka wax ula qabsanno si aynu waxqabadka socdo ula jaan qaadno aynu isu nimaadno madaxweyne adiguna nabadda noogu ducee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo goob fagaara ah kala hadlay dadkii soo dhaweynayay ayaa waxa uu yiri ku sugan yahay meel waliba iyo gobol waliba iyo deegaan waliba mid kale inaan dhageysano tabashooyinka dadweynaha waxay tirsanayaan waxay qabsadeen iyo waxay u baahan yihiin waxaanu dalka u baranay weeye halka waa nooga waranteen laakiin mar walba waanu idinku faraxsanahay sida qiimaha leh aad ugu soo dhaweyseen dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland markii uu ka baxay degmada Qorologood waxa uu soo maray deegaanka Coodanle waxaana uu halkaasi kulan kula qaatay odayaasha deegaankaasi sidoo kale madaxweynaha safarkiisana oo ahaa mid saldheer ayaa waxa uu sidoo kale booqday magaalada Balicaalanle isagoona kulamo kala duwan la yeeshay odayaasha wax karadka iyo dadka deegaankaasi si kastaba ahaatee socodkan madaxweynaha Soomaaliland uu ku maray gobolada dalka ayaa safarkani la filayaa inuu ku soo dhamaado isagoo madaxweynuhu ka soo warhelay baahiyaha bulshada بري يبضبا وشافعي محمد إبراهيم تلفزيون عالمي Kalson TV مقالة برعو.